بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalin wanaagsan. Saakay waxaan fariintan soo diyaariyay u gudbinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadeyn lahaa, nabad laga shaqeyn lahaa. waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Laascaano. dhibaatada magaalada Laascaano ka dhacday waa fogtahay, waa dhibaato culus. in hore badanna waan ka dignay, waana ka hadalnay. haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay, qoyskii, dadkii kale odayaasha ahaa, dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo. inta ku dhaawacantayna muxuu Allah caafiyo. nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaaliya meel ka mid ahay weli qoray la soo qaato. arrinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay. مواقفta dowladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan. dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo sodogiis iyo inan saydigiis ah, dad isdhalay, isdhex degay, isla dhashay waay. waxa isku haystaan marka jirnaceeb iyo dad naceeb maahana waa siyaasad. horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ah Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha. rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo. miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo. dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jecelba inaan aniga garab taaganahay, u safro tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyahay. balaayada bootin bakayle ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin. berri inaan xabadka is saarnay inaan hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin. dadku intay nool yihiin aan heshiino. ha la joojiyo maamulka, cidda sheeganaysa, cidda odayaasha dhaqanka ah, culamaa udiinka, mas-uuliyiinta siyaasiyiinta, qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato. colaada Laascaano siima soco karto, lamana aqbali karo. ha la joojiyo, miiska wada hadalka la isugu yimaado. dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududayso, ka qayb gasho, kaalmayso. haddii toos dadka hadda ay colaadu dhex martay u wada fariistaan arrinta waxaa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeed. aragti siyaasadeedna qoray kuma xalisanto. xalkeeda qoray kuma yimaado. kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoray kuma keeni karaan. ha la isu yimaado, ha la wada fariisto. mar walba horaan uga shaban mushkiladda ka jirta Sool iyo Sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimada. arrinta midnimadana anagu go'aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno, nabadaan rabnaa inaan ku raadino. dadka rabitaankiisana hala dhowraan leenahay. meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha, dadka Soomaaliyeed ma qabato, dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato. ha la joojiyaan ku baaqaynaa mar kale. culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqankane ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiray, nabadda ha ka taliyaan. inta qoryaha dadka haysta amarka kuleh ama kuleh maxaan ku raadayay raadka kulane ha la hadlaano, ha joojiyaano. wiilasha qoryaha laga qaado, ha la damiyo colaadda. intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta ha la joojiyo, xumaanta ha la joojiyo, nabadda ha lagu baaqo. lama aqbali karo dhiig kale oo Soomaaliyeed oo daata. wax la aqbali kara maaha. meel kasta ha joogo, sabab kasta ha loo soo waxeeyo. haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada. laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno, muxuu ahaay xalkuma noqde. ha laga yimaadaan leenaha walaalayaal meeshaas. waxaa kaloo ayada halkan rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba
ayagana waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalan ay ka bilaabataa meelo fog ay ka bilaabataa dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabaday weligood haysan jireen nabadii inay haystaan aan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xalliyo arinta nabad ha lagu xalliyo dowladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raali kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan soo qaadano ku xalino kuma xalli karno nooguma xalismayaan baraan heshiinayna ilaa meelan kala aadayna male xabaaraha korkooda aan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaas aan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadal aan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma nicbin waa siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah hal la wada hadlo anagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteena ilaalinayna dadkeenana u tureen aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh